maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxayne mugdigii ka maydhay. bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin. magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim ismaaciil. daawadayaal iyo dhegaystayaal ku soo dhowaada tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo idaacadda raadiyo hargeysa. waa barnaamijkeenii ka baro tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo idaacadda raadiyo hargeysa. waxaan idin dhigi doonaa ardayeed ama aynu dhigan doonaa xisaabta fasalka 8aad. waxaynu ka soo hadlaynay cutubka 5aad oo ah xog ururin iyo itimaal. haddii aan idin xasuusiyo ardayay cutubkeenii casharkeenii ugu dambeeyey halkii aynu maraynay waxaynu ka hadlaynay tirasin baynu ka hadlaynay. waxaynu ka hadlaynay masalooyin lagu furfuraayo tirasinka ayaynu ka hadlaynay. example-keenii ugu dambeeyey ardayay wuxuu ka hadlayay 4 tiro ayaa tirasinkoodu yahay 5. 4 tiro ayaa tirasinkoodu yahay 5 baa lagu yidhi. maxay noqonaysaa wadarta 4 number maxay noqonayaan? marka labada isku dhufan waxa soo baxaya arday 20 baa soo baxaya. laba ka midana tirasinkoodu waa 5. marka laba aynu ku dhufano 5na waxa soo baxaya 10 baa soo baxaya. labada tiro ee kale marka laba 5 aynu ku dhufanana waxa soo baxaya 10 baa soo baxaya. labada tiro ee kale hadhay tirasinkoodu muxuu noqonayaa? waxaynu ku helaynaa tirasinka labada tiro ee hadhay labada wadarood oo ah 20 oo laga jaray 10 ayaa 2 loo qaybinayaa. markaynu labadaa kala jarno waxaa soo baxaya daawadayaal iyo dhegaystayaal 10 baa soo baxaya. 10 marka 2 loo qaybiyana waxay intaasi la mid noqonaysaa 5 bay la mid noqonaysaa. haddii daawadayaal iyo dhegaystayaal aynu si kale u sheegno waxaan haystaa 4tii tiro waa kuwa tusaale ahaan waxaan haystaa 4 6 8 2 waan haystaa. haddii 4taa tiro arday la isku geeyo oo 4 ka koobiya loo qaybiyo 5 baa la helayaa. haddii labadaa hore aynu qaadano 4 iyo 6 qaadanana oo la isku geeyo 2 loo qaybiyana 5 baa la helayaa. labada soo hadhay tirasinkooda maxay noqonayaan? waa 8 iyo 2. haddii 8 iyo 2 aynu isku geeyno 2 qaybino 5 baa soo baxaya. haddaba ardayay waxaynu casharkeena labaad baynu caawa bilaabaynaa ama leesonkeena labaad baynu bilaabaynaa. buugga muqararka ama buugga manhajka jamhuuriyadda somalilan wuxuu kaga yaalaa bejka 146 ilaa bejka 148. casharkan dhiganana waxaa la idhahdaa badidhace ama damood baa la idhahdaa. waa maxay badidhaco? maxaa lagu qeexayaa badidhace? badidhace waa tirooyin ama cabiraado ka soo noqnoqod badan kuwa kale. tirooyinka aad haysato ardayey tirada ugu soo noqnoqodka badan ayaa la yidhahdaa badidhaca la yidhaahdaa. haddaba markaynu badidhacaha soo saarayno daawadayaal iyo dhegaystayaal tusaale ahaan waxaynu haysanaa 1 2 3 4 iyo 2 aynu haysanaa. waxaynu u baahannahay inaynu soo saarno tirada ugu soo noqnoqodka badan. si aynu si fudud u helno tirada ugu soo noqnoqodka badan waxaa loo baahan yahay inaynu tirooyinka u qorno horsanaanta fanata. intaynaan u qorin haddaba horsanaanta tirooyinka aynaan baran ardayay ama horsanaanta tirooyinka aynaan sheegin ujeeddada aynu ka leenahay badidhacaha maxay tahay? haddii aynu tusaale soo qaadano aynu ku dabaqayno nolosheena tusaale ahaan daawadayaal iyo dhegaystayaal haddii aad leedihidiin ganacsi waxaa loo baahan yahay
ganacsigaasi heerku doonaba ha ahaadee in macaamiisha wax idinka iibsataa in la diiwaangeliyo waxay u baahan yihiin in la diiwaangeliyo macaamiisha wax idinka iibsanaysa maxaa laga diiwaangelinayaa macmiil wax kaa iibsanaya ama customer wax kaa iibsanaya maxaa laga diiwaangelinayaa miya aayar wixii loo baahanya inta laga iibiyo uu iska tago waxaynu u diiwaangelinaynaa daawadayaal iyo dhegaystayaal laba arrimood ayaynu diiwaangelinaynaa kow waxaynu u baahan nahay macmiilka soo noqnoqodka batay ee mar walba meheradaada ku xidhan ee wax kaa iibsanaya wuxuu u baahan yahay tixgelin ka badan macmiilka cusub wuxuu kaaga baahan yahay tixgelin buu kaaga baahan yahay kow maxaa kale oo uu kaaga baahan yahay macmiilkan kugu soo noqnoqonaya ee meheradaada ama ganacsigaaga ku xidhanay wuxuu u baahan yahay abaalmarin buu u baahan yahay in la abaalmariyo ayuu u baahan yahay maadaama ganacsigaaga ama businesskaaga ama waxa weeye meheradaada si joogta ugu xidhan yahay waaye marka macmiilkii la tixgeliyo ujeeddadeenu ma aha in macmiilka cusub aan la tixgelin laakiin waxaa loo baahan yahay macmiilkaagii horena inaad tixgeliso oo tixgelin ka badan macmiilka cusub aad siiso macmiilka kalena aad soo dhaweysata ayaa la doonaya waxaa kaloo la doonaya in abaalmarin la siiyo haddaba qaabkeebaa arday loo siinayaa abaalmarinta loo siinaya macmiilka loo siinaya laba siyoodba waa la sameeyaa mararka qaarkood waxaa la sameeyaa bille ayaa laga dhigaayo moontali baa laga dhigaayo bil ahaan baa waxa weeyaan abaalmarinta loo bixiya mararka qaarkoodna arday waxaa la sameeyaa yeerli sanad leh ayaa loo bixiyaa abaalmarinta la bixiyaa waxaynu ogsoonnahay haddaynu tusaale soo qaadana fudud shirkadaha isgaadhsiinta somalilan ka shaqeeya waa shirkadda telesom iyo dahabshiil waxaynu aragnay markay bil walba dhammaanayso message ama fariin moobilada ina loogu soo diro oo la odhanayo abaalmarintii bishan waxaa ku guulaystay macmiilka hebel 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 baa ku guulaystay taasi waxay keenaysaa in macmiishaadii hore ay kugu soo xidhnaato qaar cusubna aad soo jiidato ujeeddada casharka aynu ka leenahay daawadayaal iyo dhegaystayaal waa taa haddii aynu ku soo noqonay casharkeennii horsanaanta tirooyinka ayaynu baranayna horsanaanta tirooyinka ujeeddadanu baranaya waxa weeye markaynu badidhacaha soo saarayno waxay inoo sahlaysaa nambarka soo noqonaya inaynu si fudud u helno horsanaanta tirooyinka waxaa loo qaybiya arday laba qaybood baa loo qaybiyaa waxaa la yidhahdaa waa horsanaanta fanata horsanaanta fanata iyo waxaa loo qaybiyaa horsanaanta degta ayaa loo qaybiyaa horsanaanta degta ayay noqonaysaa waaye maxay kala yihiin labadan qaybood ee aynu horsanaanta tirooyinka u qaybinay horsanaanta fanataa daawadayaal iyo dhegaystayaal waxa weeyaan waa marka tirooyinka loo qoro tirada ugu yar ilaa tirada ugu weyn tusaale ahaan waxaan haysanaa one waxaan haystaa two waxaan haystaa three waxay noqonaysaa four five ay noqonaysaa sidaad arkaysaan daawadayaal iyo dhegaystayaal markaad buur fananayso waxa weeyaan kor baad u koraysaa tirooyinkeenna mar walba waxa weeyaan way sii kordhayaan kor bay u socdaan horsanaanta degtaana waa maxay horsanaanta degtaa waa marka tirooyinka loo habeeyo tirada ugu weyn ilaa tirada ugu yar waa adigoo buur ka soo daadegayo hoos baad usoo soconaysaa waxaan haysanaa tusaale ahaan five waxaan haysanaa oo kale four waxay noqonaysaa three waxay noqonaysaa two waxay noqonaysaa one waa isku opposite labadaas way iska soo horjeedaan arday waxaynu soo gudbaynaa haddaba horsanaanta tirooyinka fanata horsanaanta tirooyinka labadaas aynu qaybinay waxay inoo sahlaysaa oo inoo fudaydinaysaa markaynu soo saarayna badidhacaha in nambarka soo noqonaya si fudud aynu ogaano waaye arday waxaynu ku xigsiinaynaa noocyada loo qaybiyo badidhacaha daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaa loo qaybiyaa badidhacaha marka laga hadlayo laba nooc waxaa loo qaybiyaa noocyada waxaynu soo gudbaynaa badidhacaha
noocyada badidhacaha markaynu ka hadlayno badidhacaha waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood ayaa loo qaybiyaa waaye 3da qaybood maxay kala yihiin ee loo qaybiyo badidhacaha waxay kala yihiin kow ka ugu horeeya wuxuu noqonayaa waa hal badidhaca la yidhahdaa hal badidhace ka labaadna waxaa la yidhaahdaa laba badidhac ayaa ka labaadna la yidhaahdaa daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaa la yidhahdaa ka labaadna waxaa la yidhahdaa laba badidhace ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa badidhace badane ayaa la yidhahdaa saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyaa badidhacaha loo qaybiyaa waxaynu dul istaagi doonaa ama aynu u sheegi doonaa mid baynu u sheegi doonaa saddexdaa nooc ee aynu badidhacaha u qaybinay ee kala ah hal badidhace laba badidhace iyo badidhace badane saddexdaasaynu daawadayaal iyo dhegaystayaal aynu mid istaagaynaa waa maxay hal badidhace hal badidhaco waxa weeyaan waa marka ay hal tiro ugu soo noqnoqod badato tusaale ahaan waxaynu haysanaa 1 waxaan haystaa 2 waxaan haystaa 3 waxaan haystaa 4 waxaan haystaa 3 waxaan haystaa 5 tirooyinka aynu haysanno haddii aad eegtaan arday waxa ugu soo noqnoqod badan 3ga ayaa ugu soo noqnoqod badan sidaa daraaddeed waxaan odhanayaa badidhacuhu waxa weeyaan baan odhanayaa waxa weeyaan waa 3 baan leeyahay waayo 3 baa ka soo noqnoqod badan kuwa kale waa maxay laba badidhace waa bimodal buu isaguna noqonaya bimodalkuna muxuu noqonayaa isaguna bimodalku wuxuu noqonayaa ma laba badidhacuhuna waa marka ay laba tiro in isleeg soo noqnoqdaan tusaale ahaan waxaynu haysanaa daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaan haystaa 2 4 6 waxaan haystaa 2 waxaan haystaa 8 waxaan haystaa 4 baan haystaa tirooyinka aynu haysanno ee aynu taxnay ee ah 2 4 6 2 8 4 maxaa soo noqonaya arday waxaa soo noqonaya 2gu sida arkaysaanba 2 jeer ayuu soo noqonayaa 4kuna wuxuu soo noqonayaa 2 jeer buu soo noqonayaa maadaama labadaa tiro ay in isleeg soo noqnoqdeen waxaynu odhanaynaa badidhacuhu baynu odhanaynaa badidhacuhu wuxuu soo baxayaa waa 2 iyo wuxuu noqonayaa iyo 4 buu noqonayaa labadaa number baa in isleeg soo noqnoqdo bimodal buu noqonayaa wuxuu noqonayaa laba badidhac buu noqonayaa waaye qaybteena saddexaad waa multimodal bay noqonaysaa multimodal maxay noqonaysaa iyaduna waa badidhace badanay noqonaysaa waa maxay badidhace badane badidhace badane waa marka 3 tiro iyo in ka badani ay in isleeg soo noqnoqdaan tusaale ahaan arday waxaan haysanaa 1 2 3 4 3 2 1 baynu haysanaa waxaynu haysanaa 7daa tiro ayaynu haysanaa ee kale ah 1 2 3 4 3 2 iyo 1 baynu haysanaa waxaynu arkaynaa 1ku ardayay wuxuu soo noqonayaa 2 jeer buu 1ku soo noqonayaa 2guna saasi leeg wuxuu soo noqonayaa 2 jeer buu soo noqonayaa 3guna wuxuu soo noqonayaa 2 jeer buu soo noqonayaa saddexdaa tiro ayaa in isleeg soo noqnoqday maadaama saddexdaa tiro in isleeg soo noqday waxaynu odhanaynaa sidaa daraaddeed baynu odhanaynaa badidhacu waxa weeyaan waa 1 waxaa loo dhexaysiinaya hakad iminka 2 tiro maa way ka badan yihiin waxaan leenahay 2 marka saddexaad ama marka u dambaysa ayaa loonaya iyo waxay noqonaysaa 3 saasaa loo qoraya arday waxaa loodhanayaa badidhacuhu waa 2 waxaa loodhanaya waa 1,2 iyo 3 baa loodhanaya waxaynu soo gudbaynaa arday examblekeenna ugu horeeya ama tusaaleheenna ugu horeeya ayaynu soo gudbaynaa waxay leenahay tusaalooyin ayaynu soo qaadanaynaa daawadayaal iyo dhegaystayaal examblekeenna waxay leenahay tusaalooyin
tusaalahan soo socdaa ayayn ardayay aynu ka shaqaynaynaa waxaa lagu leeyahay raadi badi dhacaha tirooyinkan soo socda raadi badi dhacaha tirooyinkan soo socda waayahay su-aasha koowaad ee waxaan haysanaa 7 كوما 41 كوما 7 كوما 36 iyo 8 40 lixdaa tiro ayaynu haysanaa waaye example-keena qaybta labaadna ardayay waxaynu haysanaa 6 3 4 3 damal 6 laba 6 ayaan haysanaa 5 3 7 waxaynu haysanaa sagaalkaa tiro labadaa example bayn daawadayaal iyo dhegaystayaal aynu ka shaqaynaynaa ardayay waxay leenahay marka ugu horeysa waxay leenahay furfuris bay leenahay waaye tusaalaheena koowaad ee maxaynu haysanay tusaalaheena koowaad ardayay waxaynu haysanay 7 hakad 41 hakad 7 kale ayaynu haysanaa hakad waxaynu haysanaa 36 waxa kaloo aynu haysanaa 8 iyo waxaynu haysanaa 40 baynu haysanaa lixdaa tiro ayaynu haysanaa daawadayaal iyo dhegaystayaal sidii haddaba aynu hore usoo sheegnay ardayay si aynu badi dhacaha si fudud ugu helno waxaynu u baahannahay inaynu tirooyinka habayno una habayno labadii siyood ee aynu soo sheegnay horsanaanta fanata ama aynu habayno ama horsanaanta degto aynu habayno had iyo jeeraale waxaa la isticmaalaa daawadayaal iyo dhegaystayaal horsanaanta fanata ayaa la isticmaalaa oo ah in tirooyinka loo habeeyo tirada ugu yar ilaa tirada ugu weyn tirooyinkiina soo socda ayaa waxaan leenahay waynu habeynaynaa waxaan leenahay u habee horsanaanta fanata horsanaanta fanata ayaa loo habeynaya horsanaanta fanata micnaheedu waxa weeyaan ardayay tirooyinkan aan haysano ama 6 tiro aan haysano inaan u habayno tirada ugu yar ilaa ta ugu weyn tirooyinkeennan aan haysano meesha inoogu qoran maxaa ugu yar wayn iska calaamadinaa si aynaan ugu qaldamin waxa ugu yar sida arkaysaan ardayay 36 baa ugu yar waxaan haystaa 36 tirada kale ku xigtaa maxay noqonaysaa waxa kale ku xiga 37 baa ku xiga oo waliba laba jeer soo noqonaya ayaa waxa weeyaan ay haysanaa waay waxa kale oo ay arday haysanaa 37 kiina aniga meesha ka saaray waxa kale oo inoogu xiga 8 ayaan haysanaa waxa kale oo ay haysanaa arday oo ay haysanaa 40 waxa kale oo inoogu xiga 41 baan haysanaa lixdii tiro arday waa kuwa haddaba waxaynu baahannahay inaynu soo saarno tirada ugu soo noqodka badan waa arkaysaa marka tirooyinkii la habeeyay si fudud baynu arkaynaa daawadayaal iyo dhegaystayaal tirada ugu soo noqodka badan oo ah 37 badidhiceyna marka wuxuu noqonayaa 37 waxa leenahay sidaa daraadeed bay leenahay therefore badidhacuhu waa saasaa loo qorayaa arday waxaan leenahay waa 37 ka ayaa laba jeer soo noqonaya tirooyinkan haysano example-ka labaad ee kale example-keena qaybtiisa labaad aynu soo gudbaynaa waxaan haysanaa ardayay 6 3 waxa kale aynu haysanaa 4 waxa kale aynu haysanaa 3 waxa kale aynu haysanaa laba 6 ayaynu haysanaa waxa kale aynu haysanaa 5
waxaynu haysanaa 3 waxaynu haysanaa 7 sidii arday aynu soo sheegnay example-ka hore oo kale ayaa waxaa loo baahan yahay sagaalka tiro ee aynu haysano inaynu u habayno horsanaanta fanata si aynu si yar oo fudud ugu helo tirada ugu soo noqodka badan markaynu tirooyinkan habayno maxay noqonaysaa waxa leenahay u habe mar walba waxa la isticmaalaya horsanaanta tirooyinka la isticmaalaya waxa leenahay u habe horsanaanta fanata horsanaanta waxa loo habeynaya fanata ayaa loo habeynaya horsanaanta fanata arday markaynu u habayno tirooyinkan aan haysano sagaalkan tiro aan haysano maxaa ugu yar waxa ugu yar nambarada meesha aan haysano marka saa u eegno 3 baa ugu yar imise 3 baa doo ku jira si aynu saddex tiriyada meesha ku jira aynu hal mar isku raacino waxaan haysanaa 1 waxaan haysanaa 2 waxaan haysanaa 3 saddexda 3 baa ugu yar saddexda 3 bayn arday ugu soo horeysiinayna waxay noqonaysaa 3 saddex 3 baynu qoraynaa waay maxaa tiriyada ku xiga oo kale oo ku soo xiga waxa ku soo xiga arday 4 baa ku soo xiga oo waxa kale ku soo xiga 5 baa ku soo xiga waxa kale in haysanaa 4 iyo waxay noqonaysaa maxay 5 bay noqonaysaa waay maxaa kale ku soo xiga waxa ku soo xiga 5ka tirooyinka meesha inoogu qoranaan haysano 6ka ku soo xiga imise 6 baan haysanaa waxaan haysanaa 3 6 baan haysanaa 6yada aynu haysano ama tirooyinka haysanaa isku midka waa la wada qoraya lagama tagaayo waaye 3 6 baan haysanaa saddexdaba wayna qoranaa waxa leeyahay waa 6 iyo 6 iyo 6 baa leenahay maxaa kale ku xiga numberka ugu dambeeya in haysanaa daawadayaal waxa weeyaan waa 7 numberka ugu dambeeya waa 7 haddaba waxaad eegtaan arday tiradeeba markaynu habeynay tirooyinkii teeba ugu soo noqod badan sida arkaysa waxa ugu soo noqod badan tirigu 3 jeer ayuu soo noqonaya 6kuna wuxuu soo noqonayaa 3 jeer buu soo noqonaya tiriga iyo 6ka ayaa min in isleeg soo noqday maadaama in isleeg soo noqdeen waxaan oranaynaa arday badi dhacuhu waa waxaan qoraynaa labada saddex tiriye isku mid ka haysano mid ahaan baa la qorayaa saddexda lama qorayo sigisyadana haysana saddex sigisay haysana soo noqday iyagana mid ahaan baa la qorayaa xorana iyo waxa la oranayaa waxa weeyaan waa 6 baa la oranayaa qaabkaasa arday loo qorayaa xoranayaa badi dhacuhu waa 3 iyo 6 baa la oranayaa haddii iyada laga saaro arday maxaa dhacaya haddii 6ka aynu ka saarno meesha oo aynu qaabkaas oo kale u qorno oo aynu sidan kale u qorno arday waxa soo baxaya hal tiro ayaa soo baxaya oo ah 36 36na meesha inuguma jirto sidaa daraadeed arday waxa la idin ka rabaa in marka laba tiro asaas oo kale in isla soo noqdaan in loo dhaxaysiiyo iyada loo dhaxaysiiyo ama aan baa loo dhaxaysiinaya waxa oranayaa jawaabtu waa badi dhacuhu waa 3 iyo wax noqonaysaa 6 bay noqonaysaa haddii mid kale uu jiri lahaa oo isaguna intaa in leeg soo noqon lahaa maxaa la samayn lahaa arday waxa la samayn lahaa isagana waxa loo qori lahaa laba jeer iyada lama soo celinayo waxa la oranayaa tusaale ahaan hadduu numberka tusaale ahaan 7kaasi uu soo noqon lahaa isaguna 3 jeer soo noqon lahaa inta ay soo noqdeen 3 iyo 6 soo noqdeen waxa loo qori lahaa arday isana loo qori waxa la 3,6 iyo waa la oranayaa 7 baa la oranayaa marka u dambaysa ayaa iyada la isticmaalaya laakiin markasta lama oranayo 3 iyo 6 iyo 7 lama oranayo marka u dambaysa ayaa la isticmaalaya waaye arday halka waxaynu ku dhiganay casharkeeni ka hadlayay badi dhaca hal su'aal ayaa arday dib aan ugu noqonaynaa haddii la waayo tiro soo noqonaysa aanay jirin maxaa la yeelaya way dhici kartaa ama ha lagu tala galo ardayga maskaxdiisa hal la eego haddii ay dhacdo maxaa la sameynaya haddii hal number oo soo noqday waayo waxaan haystaa 1 2 3 4 5 aan haystaa raadi baa lagu badi dhaca badi dhacana waxaan ku soo sheegnay waa ka ugu soo noqodka badan mar haddii aanu jirno number soo noqonaya waxaan leenahay badi dhac ma jira ayaa la oranaya arday halkaas aan ugu dhan yahay example-keeni waxa ka soo shaqeynaysan arday exercise-kan ayaa ka soo shaqeynaysan ama layliska laga soo shaqeynaya waxa lagu raadi badi dhacaha tirooyinkan soo socda saddexdaas su'aalood
ayaan doonayaa ka soo shaqaysaan daawadayaal iyo dhegaystayaal aad iyo aad ba mahadsantihiin halkani daawadayaal iyo dhegaystayaal waa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda raadiyo Hargeysa ka baro TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda raadiyo Hargeysa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay